السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذلكين بمل والبؤات جوجتان كسو دوادا برنامج كأرمها بلشدة وإذن كي إيماني تلفزيون كنيو أفريكا حارنتي سخرتوم أو هاد كلا سعوتان آلابا وقتي كانوا كلا مركا أي تهي نقلا سعوتان كسو دوادا ولا ليال مل والبؤات جوجتان الدوينة هدا على الكيسة برنامج كمان توحى مرتي إيغو ولكن محمد عثمان علي أو كما قاعد معجزه كسو دوا ولكن معجزه waan dhawahay waa mahadsantihiin adiga aad iyo mahadsantahay adiga iyo baxdaba adiga mudan caawa barnaamijka walaalayaal waxaan ku qaadaa dhigi doonaa adinkoo og xaalka wadanka uu ku sugan yahay arinta baarlamaanka iyo dawladda u dhaxaysa iyo xukuumadda iyo magaranaysaay baarlamaanka iyo sidoo kale arrimaha ku soo cusboonaaday goobta sidoo kale hadaan idin sheego caawa martida qofka nooga waxa weeyaan mar labaad idin ku soo celiyay maxamed cusmaan cali oo ku magac dheer mucjiso oo ka baxay kulliyadda loo yaqaano taqniyat macluumaat ama magaranaysaay computer science sidoo kale baaj ka wata waxa weeyaan kulliyadda imaaraat sidoo kalena ka wata darajada masteredka isla kulliyadan oo loo yaqaano kulliyadda imaaraat mar labaad ku soo dhawaaw maxamed run ahaantii wadanka ayaamahan waxyaabo fara badan ayaa naga soo gaarayo baraha bulshada ha noqoto dadku waxay isla dhaxmarayaan arintan maxaa xaaladihii ugu dambeeyay ee wadanka ka soo cusboonaaday maxay ahaayeen ustaad maxamed cusmaan waad mahadsantahay doctor runtii maalmihii dambe xogo war tiro badan ayaa soo tarayay markii si loo fiiriyana waqtiga hadda la joogo wadanka waxaan isdhihi karnaa meel wanaagsan ay wararkiisa marayaan ama xaalad wanaagsan ay ku jiraan sababtoo ah waxaan arki jirnay markii la kala ra'yi doonaado in ra'yiga ficil loo bedelo oo waliba ficil xun la qaado laakiin maanta waxay maraysaa in yani iyadoo mar walba la isku qancinayo in fikrad kala duwanaanshaha lagu saleeyo si sharci ah marka waxaan dhihi karnaa shalay iyo maanta laftirkeeda markii loo fiiriyay inta guuxa uu dhan yahay maanta ayaa las dhihi karaa xoogo way si fiican tahay iyadoo shalaytoo la xoogo qaylay iyo yani kala arag duwanaansho iyo yani xusul duubid midka kale in yani hagar daamiya ay shalay ay socotay laakiin maanta waxaad is dhihi karnaa sidii shalay aad iyo aad ay ugu fiican tahay ugu ififaale fiican tahay aad baad u mahadsan tahay ustaad run ahaantii goobta iminka maanta hadda baraha bulshada iyo wadanka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta la hadalhaya waxay tahay arintan mooshinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumaddiisa iyo dawladda marka maxay ku dhacday gudoomiyaha baarlamaanka in uu yiraahdo waxa weeyaan waxaan ka keenaynaa mooshin arrinka sidee loo arkay ama maxaa looga keenay mooshinka horta mooshinka waxyaabaha lagu keenay doctor sidaan ka warqabnaba waxay salka ku haysaa miisaaniyadda ama barnaamij wax maaliyad ku saabsan hanti intaanu imaanin ra'iisul baarlamaanka safar oo dalka dibadiisa ayuu ku maqnaa intuu maqnaa waxaa jirtay in guddi dabagalka maaliyadda ah inay soo gudbiyeen hanti inay maqan tahay oo loo yeeray wasiirkii ay qusaysay taa ayada ah waxay sababtay in siihayaha ama ku-xigeenka koobaad iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka guddiga inay kala diraan markii ay kala direen iyadoo guuxaas xoogo uu yara socoyey ayaa waxaa yimid ra'iisul baarlamaanka ama hoggaanka ugu sarreeya baarlamaanka waa la dareemi karaa waa la fahmi karaa qof shaqadiisii markii xoogo iyadoo aan lagala tashan lasii taabtay laga yaabee waxyaabo sii yeelay darteed in halkaa ayada ay ka dhalatay in loo dhiibo rag diyaariyey mooshin ama soo jeedin waxaan isdhihi karnaa marka waxay dabada ku haysaa guddigii
dabagalka maaliyadda aad iyo aad taas ayaa sababtay in mooshinka laga keeno madaxweynaha una aqbala ama uu qabto ra-iisul baarlamaanka aad iyo aad aad iyo aad waxa weeyaan maadaama ay moshinku arrinkiisu uu isa soo daba jiitamay aragtiyo kala duwan loogu keenay ma la dhihi karayaa waxyaabaha mooshinkani in uu isfahan ka yimid masalan guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaaniyiinta lafahooda iyaga oo abuuraya xaalad markaa run ahaantii siduu wadanku ahaan jiray ay mar walba ma garanaysaa markii ay xoogaha arin ay is yiraahdaan dadku maanta lalehe barnaamij lacag iyo waxaasa loo baahan yahay ma la dhihi karaya abaabul noocaasa ayaa isfahan gudaha ka dhacay ayuunbuu ku yimid mise waa wax intaa ka weyn oo aragti kale waa wax la suuraysan kara runtii ama wax dadkoo dhan ay wada firin karaan si fiican dad badan arrinka ayada ah laftikeeda bulshada aad iyo aad ayay u kala duwan tahay dadaa waxay qabaan meeshan waa licba ama ciyaar laisla fahansan yahay aad iyo aad oo ay isla og yihiin qaybo ka mid ah baarlamaanka iyo ra-iisul baarlamaanka dad qaarna waxay aaminsan yihiin ay dhahayaan waxaan wax xaqiiq ah waaye oo ka soo go-ay garab rasmi ah doonayana in ra'yigooda iyo aragtida ay ka qabaan waxaa inay caddaato laakiin marka la fiiriyo sidii bulshada aad iyo aad ay barnaamijkan ay mar walba diiradda u saareen oo ay kaga warramayaan waxay u badan tahay waxaan inay ku salaysan yihiin isbahaysi iyo hoos iska taabasho sidaas ayay u badan tahay waa sida yacni markan in badan aan dabagalnay ama aan la xiriir fara badan la sameyn bulshada laftikeeda ama yacni dad ka tirsan laftikooda aan la xiriirnay waxay u badan tahay in is og yihiin wuxuuna waxay ku salaysan yihiin isgaashaan boorsi ama isgarabaysi ku salaysan yihiin aad iyo aad sidaas marka waa barnaamij abaabulan oo markaa xaalad abuura baa la odhan karaa barnaamij abaabulan oo yacni lisla og yahay waay aad iyo aad haddii aanan lisla ogeyna tallaabada intaan maba soo gaarteen wax walba way dhicisoobi lahaayeen waqti xaadirka marka waan gartay arrinka mooshinkii xagee ku dambeeyey mooshinkii xoogoo waxaad moodaa in yacni iska caabin culus weliba ay la kulmeen sidaa darteed wuxuu marka soo jeedin la gudbinaya laftikeeda igu soo orod ma aha marna way fududaan kartaa marna way kugu cuslaan kartaa waxay noqotay barnaamijkan markuu yimid horta marka koowaad lagama filaynin ra-iisul baarlamaanka mooshin in uu qabto wax laga filay maaha mustaxiil ay ahayd waayo waan ogsoonahay waa saaxiib dhow ayuu la ahaa aad iyo madaxweynaha aad iyo iyo ra-iisul wasaaraha si fiican ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda oo idin waayo markii horeba xukuumaddu ka tirsanaa si fiican waa tii isu soo casila memberkan ama kursigana loo soo sharxay aad ogeyd sidaa darteed yacni xukuumaddana filaway ay ku noqotay dad badan oo la dhacsan xukuumadda si fiican ayadana sidaas oo kale waxay noqotay filawa sidaa iyadoo marka ay jirto ayaa haddana waxaa dhacday in laisku dayo in lagu qanciyo barnaamijka inuu ka laabto muddo ayay qaadatay dabcan in yacni xitaa sidii wararka ay sheegayaan xaqiiq anaga hadda maanta ma ogaan karaan laakiin sidii wararka ay sheegayaan xitaa laisku dayay dad ra'yi kusoo biirin lahaa oo yacni marka koobaad ba keenay mooshinka xitaa in xogoo laga hakiyey inay u galaan xitaa hadalla noocaasi wayna soo gaareen weliba dad si caadi aniga ka shaqsi ahaan aan ula hadlay ee baarlamaanka ka tirsan waxay ugu yidhahdeen maxamed cismaan hadalkaas waa sax aniga ayaa arrintaas ayay qabatay sidaa darteed ayay ku suurageli weyday in mooshinkii uu fula waxaa kaloo dheeri ah xubno badan si kastaba ha ahaatee ayaa ka laabtay mooshinkii hore ee laga keenay madaxweynaha si kastoo ay ku timaadaba ama bareshar ha noqoto ama ka fiirsasho mar labaad ha noqoto labadaas mid un bay noqon kartaa waayo dadkan baarlamaanka waxay maanta matalayaan bulshada ama shacabka soomaaliyeed qofku waa inuu mar walba ka fikiraa yani waxa khatarta u keenaya dalka iyo dadkaba
waxaa laga yaabaa marka in ka fiirsasho dad qaar ay codkoodii iyo aragtidoodii ay u bedeleen. waxaa kaloo macquul ah isku qancin iyo barnaamijkan ayaga laftikooda in maskaxdoodii laga bedelay warheed waxaan ma ahane oo si kale wax loo tus intaba way dhici kartaa. taas ayaana sababtay ilaa iyo hadda barnaamijka inaan laga hadlin oo aan la socodsiin ama aan la diidin. aad iyo aad markii halka xaaladdu maraysay dabcan waxaa dhacday cunsurka Soomaaliga ana waxa weeyaan mar walba ma lihin in la isu tanaasulo ama in qofka walaalka ah aad maaragtay aragtida u leeyahay adiga oo og inay khaldan tahay adoon khalad iyo ka fiirinin sax inaad maslaxada guud aad u janjeeramto. marka waxaana soo gaaray warar marka in gudoomiyaha baarlamaanka uu filla Soomaaliya ka guuray meeshii ay ka soo dhaxgaleen qola mucaarada oo arrinkii ay ra'yul caam ay saameyn ku yeelatay. arrinka ma jira marka in ay ka faa'iideysi ama isku dayitaan ka faa'iideysi mucaaradku ay isku dayeen. waa la dhihi karaa aad iyo aad sababtoo ah siyaasadda dhanba ayaa waxaa ah in la iska faa'iideysto. qof deganaad arkaysaa waad gaadaysaa. si fiican halka wadamada horumaray siyaasadda sidaas aanay ahayn, laakiin siyaasaddeena ama wadamada soo koraya siyaasaddooda waxay ku salaysan tahay kan dagan gaad. marka waxaa laga yaabaa inay yimaadaan dad badan oo ka faa'iideysanaya intay xaaladan ama buuqan uu jiro, weliba garab ay siiyaan qofka ay isdhahayaan waa ku aragti dhow yahay ama wax badan ayaad hadhow ka garaacan kartaa. marka sidaa darteed ayaan 90% dadka wax indhe ay u dhahayaan in alle intii ka aragti duwaneed xukuumadda waxay u badan tahay inay u biyo shubtaan ama ka ag dhowaadaan ra'iisul baarlamaanka maadaama uu yahay awoodda labaad ee dalka. si fiican wadanka maadaama uu burbur soo galay 28 sano ku dhawaad 30 sano ma la is odhan karaa maanta maadaama ay kala dambeyn iyo shuruuc la sameeyey dowladdii ay soo hana qaadayso la helay beesha caalamka inay ay hadda Soomaaliya dowladaha inta ugu badan ay safaaradahoodii keenaan safaaradda Mareykan baa ugu dhaweyd ugu in ay ka furanayaan meeshii hadda ay ka furanayaan safaarad waxaasoo dhan markii la isu soo eego in ay qofka Soomaaliga ah siyaasiga Soomaaliyeed soomay ahayn inay arrinkaa geliso didiilo oo ay yiraahdaan maanta aan isqabsano waxyaabaha khilaafaadka inaga noo dhaxeeya yaryar waa bani aadam khalad u dhici karaa dowladda iyo mucaaradka iyo madaxweynaha uu ka dhici karaa iyo guddiga maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka maynan ahayn marka in la tuso aragtida ka duwan oo si hoos wax loo xaliyo aad iyo aad way fiicnaan lahayd. laakiin doctor ninka kubadda ciyaaraya waxaa kaga dheereeya ninka daawanaya, waxaa kaga dheereeya ama kaga xirfad badan ninka daawanaya. annaga hadda waxaa noo muuqda ee ayaga waxa u muuqda kaafii kala dheeriyo aad iyo aad u kala duwan yihiin. si fiican laakiin waxaa fiicnaan lahayd in ra'yi caamka guud ama aragtida dadweynaha oo dhan intay dhageystaan guuxa dhageystaan ay ku saleeyaan sida shacabka waxay u rabaan. maanta muhiim ma aha xadaarinimona ma aha yacni caqli maanta lagu dayan karana ma aha in la isqabqabsado. si fiican waxaa qurux badan yani wala kala arag duunada horta waxaa cad oo muuqata xukuumaddan aad iyo aad inay u shaqaysay aad iyo aad sababtoo haddaana la shaqaynin isqabqabsi ma aanay dhacdeen. waa sax yacni haddii isqabqabsi uu dhacana si yaroo kooban ama si hoose in loo xaliyay ahayd. marka waxaa dheeri ah oo runtii aniga iyo rag badan ama bulshada inteeda badanba ay qabaan awood in la isticmaalo mamnuuc ay tahay ayaa dad qaarkood ay isu isticmaaleen aad iyo aad oo ah waxa loo yaqaan fake news ama yacni propaganda la soo furo dacayaad media la isticmaalay social media la isticmaalay waxaa qurux badnayd markaas ayada
halkaas markay taagan tahay adiga waxaa tahay mas-uul qaran. si fiican ustaad waan kusoo laaban doonaa aad baan makaaga raali gelinayaa inaan kaa kala jaray laakiin daawadayaal qadar yar oo faasila anaga dheeraanina isku soo laabanina. telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmariga iyo afka Soomaaliga. fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta. xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan. higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda. daawadayaal idilkiinba mar labaad kusoo dhawaada waxaad naga daawanaysaan telefishinka New Africa xaruntiisa Khartoum. waxaa caawa marti igu ah saan idin sheegay al-ustaad Maxamed Cusmaan Cali oo ku magac dheer Mucjiso. inta aanu barnaamijka ku deeda jirno waxa aad nagala soo xiriiri kartaan aad naga soo beegsan kartaan barahayaga bulshada barooyinka bulshada Facebook iyo Twitterka iyo telefoonka idinka soo baxaya shaashada. kusoo dhawaad ustaad mar labaad. waan dhawahay doctor intaanan aadin nasashada ka hor waxaan ku guda jirnay in fake news la isticmaalo iyo garbation iyo propaganda ayaan ku magac jirnay. horta maanta yani wuxuu iska noqday Facebook aalada la yiraahdo aalad yani runtii sharteeda iyo khayrka labadaba lah aad iyo aad yani waxaad moodaa wadamada qaar waxay ugu faa'iideystaan yani in wax lagu kharibo ama dadka qaar aan dhaha iyadoo wadamada dhan aan wada dhihin. sidoo kale Twitterka waa dangerous oo halis. haddii maanta adiga aan kala aragto doonaana ma aha in adiga damage aan ka foqeyn aan ku saariyo, laakiin waa inaan cabiraa number 1 horta waa inaan adiga ka dhaadhico isku daya waxaan in laga fiicay ama si kale aan waxaan u wado. haddii taa ay dhici weydo yani sharaftaada iyo sharafteedaba waxay ku jirtaa wax walba inaanan keenin media nooc kastaba ha ahaado ama ha ahaado aaladaha la iska arka oo caadiga ah ha noqdo barahan qoraalada bes lagu soo bandhiga ha noqdaan TV-yada sida gooniga loo leeyahay kale ha ahaadaana oo waliba marka ayada ku shaqeeyo oo in yar oo marka wararka la gato la yiraahdo waxaan ii socodsiiyay. laakiin waxaad moodaa annaga wadankeena iyo wadamo kaleba wadankeena kaliya wadamo badan oo isticmaalaya jira social media aad iyo aad
qofka awoodda koowaad oo cogsada ayuu ka dhigaa sidaasna ma aha waa laga qurux badan yahay waayo warbaahinta waxay leedahay shuruuc ay leedahay waxay leedahay waxa u yeela hab raac rasmi u yeelo wax walba lagu faafi kara ay leedahay way fiicnaan lahayd in annaga aan iska xukunno ama aan kontrolno ama aan ilaalino inaan gudbina qof walaalkeen dacayaad ama wuxuusan ahayn ama in yani aan ku weerarno baraha yani in laga waanto way fiicnaan lahayd waxaad arkaysaa labada garab maanta ishaya meel walba waad ka daawan kartaa anigoo xisbi kale ah ama adig mucaarad kuga ah waxaan ku marinayaa wax alla waxaan awoodo oo adiga ku siira xumeynaya ama cv-gaada dhan khaldayo yacni adigana sidoo kale waxba ima dhaantida waad igama xishoonaysid waxaad samaynaysaa ceebahayga intaad soo raadisid ayaad waxaad raadinaysaa tviyada kuwa ugu daran ama warbaahinta kuwa ugu daran ee faafiya fidnada waxaad leedahay sidaan u ahaa isna sidaan u ahaa meesha marka maxaa ka dhalanaya aniga adiga waan isaynaa waxaa ka dhalanaya shacabkii in uu ku dhaco niyadjab number 1 number 2 waxaa soo baxaya in laba garab oo mar walba ishayo ilan waxaan haraynan ayaan aniga adiga aan isu raabnay oo ah waxaan aaladan mar haday gasho weligeed meesha ku jiraysaa waxaan ama warkan uu qoraan bari ka maalin hadalkaas waxaa laga yaabaa ama adigu kugu soo laabanaya ama anigu ugu soo laabanaya ha yeeshee waa wax qoran oo la dhahayo qof hebel waagaas iyo waagaas saan ayuu dhahay saan ayuu sameeyey hadalkaas ayuu saaxiibkiis ku yiri hebel nin xun waaye oo waxaa sheegay ninkaas oo isla shaqayn jireen oo qofkii laftigiisa wuxuu noqonayaa qof yani ama afkiisa wax ku dilay ama sumcadiisa laftigiisa soo dhacay waayo haddii maanta aan nin cayb badan ama dhib badan haddaan noqdo sumcadayda hoos ayay u yaraanaysaa laakiin haddii nin inta badan markuu hadlaya hadalkiisana xadidan yahay haddii ay dhacaysaba haddii aan hadlaya hadalkiisa xadidan yahay haddii kalena aragtidiisa ku gudbinayo qaab hoose yani waxay noqonaysaa qofkan sumcadiisa in mar walba hay ay noqoto ay sarreysa yani aragtidiisana ay socoto aad iyo aad saasay noqon kartaa laakiin annaga soomaalideena waad arkaysaa maanta dad furtid baraha bulshada waxa kaasoo horbaxaya inaad qabsanaysaa waxaan la imaaji karin ama la takhayuli karin ama aan bini aadam damiir kale uusan ku fikiri karin ayaa la isweydaarsanaya aad iyo aad taas ayada marka waxay horseedaysaa sii kala fogaasho marka anigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan TV African News tan ahaan waxaa ila fiican warbaahinta ha ahaata awoodda ugu dambeysa oo la isticmaalo waxaad awooddaa saaxiibkaa wax inaad ka dhaadhicisid haddii aad kala aragtid duunataan haddii aad ka dhaadhicin weydid qof walba saaxiib ayuu leeyahay saaxiibkiis umar ka dhaadhici waxaan inuu ka waantoobo ama waxaan in lagu qanciyo sida aad wax u rabtid haddii ay dhici weydo taa ayada haddana waxaa fiican adiga afkaaga inaadan qof bini aadam ah sumcadiisa aadan ku wiiqin aadan ku xumayn CV ruux kale aadan gubin sidaas ayaa fiican marka laakiin maanta dadka haddana wararka yani isweydaarsanaya markaad fiirisid gariid ahaan dad qaar waxaa dhihi karaa dad xitaa xoogo waxna qoro waxna aqriya ama yani jaamacada mar hore ka baxay aqoon-yahana waa la dhihi karaa cilmigana dadka inuu xadida ama celiya ayaa qurux badan waxaan markaad adiga aad xambaarsan tahay amaano ama risaalo musaqafnimo markaad xambaarsan tahay dadka lamid ma tihid waxaa tahay shaksi xasaasi ah oo hadduu hadlo hadalkiisa intaasoo ruux oo effect garaynayo markuu talo gudbinayana sidaasoo kale taladaada waxaad awoodaa intaasoo ruux sida yaroo kooban oo macquul inaad kaga gedid aad iyo aad marka adigoo awoodid in si yaroo kooban dadka ama shacabka ama ummadda dhan aad ku kasbatid maxaa kuu geynaya in yani ummadoo dhan aad wada kharibtid beritoolana adiga maanta i mucaaraday ama adiga maanta CV-ga kharibayo meel walba adiga aad gaartay beritoolana jaanis ku siini maayo waayo kuu hambeeya loo hambeeyaa shalay tool waxba imaadan turan adiga
fursadahana ama muwaadinka waqtigiisa si tala si haddii talada iyada laga qaadan waayo adiga yani shaqo kuma lihid wax alla wixii dhaca aad iyo aad laakiin waxaad tilmaami kartaa saas iyo saas in laga fiican yahay saa iyo saan ayaa fiican waxaan ku tali lahaa saa iyo saan in la sameeyo inaad dhexdid oo keliya ee aadan dhixin adiga aadan igu safayn aniga inaan ahay nin faashil ah nin yani wixii loo ogmaday yani khayaareeyey inaan ahay nin yani muxuu ahaa ummadda nin u adeegi kara inaan ahayn aniga igu sifaynin ha igu sifaynin waayo taas hadday dhacdo berritoola recordingkaas waa ku yeelaa waa mid duuban adiga markaad wax qabatid waxaad rabtaa in yani taladii ama u adeegii sida adi aad u aragtid waxaad ku fulisid haddii aan ku yidhahdo walaal sa isaan sameyna yani igu ma ku qancaysid sababto waxaa leedahay ninkan ilaan ama ku hagardaamina waa taa shalay meeshan aad ka tuurtay anigana kuu turi maayo ilaan shalay dhaawac aad ii geysteen ogsoonay aad iyo aad waxay noqonaysaa marka mar walba afkaar xitaa annaga keli maaha jiilka soo socdo way saameynaysaa in yani laisku daydo beri kamaan kuwa imaanayna yani soomaalida waxay tidhahdaa ratiga hore ratiga dambe saaqaadkiisa ayuu leeyahay maanta aniga adiga markaan saan isu qabirofanayno aan isqaniinayno oo aan siyaasa isku hardiminayno oo si macquul ah aan isula shaqaynaynin ogow beritoola caruurteenna ama dadka yani aniga waxay fiirinayaan sidaan adiga ku ataagaya adina waxay fiirinayaan sidii ataagaysid halkaasaa laga waxaynaya saas un bay u socon doontaa laakiin haddii maanta aan ka fikirno warxeedhe annaga waxaan nahay marna waxaan nahay dad bulsho u shaqeeya marna waxaan nahay mucalimiin waxbaraya jiilka soo socda ay kuwa hada joogo maxaan samayn karnaa marka aniga waad iga aragti duwan tahay emo ii sheegay dhe walaal maxamed saan iyo saan qodobkan saa iyo saan ka bedel saan iyo saan ayaan waxu arkaa haddaad igu qancin weyday waxaa laga yaabaa mid kale igu qancin kara inuu jira ii soo mar ii emo saa iyo saan ayaan waxu arkaa haddii ay dhici weydo nin tala adag way dhici jirta fursadeyda isi waa intaasoo yani dib u akrin inta isku sameeyo waxyaabihii ii qabsamay ama waxyaabihii aan kusoo gudi jiray iyo wixii aan qalday intaan kala ogaado aan ka shallaayo ra'yigii mar hore aad igu tiri aana ku xuso oo aan ku dhaho walle saaxiibkey markuu hadalkaa ilahaa haddii aan ka qaadan lahaa okay ay ahaan lahayd kadibna aan ku imaado aan ku mahad celiyo ilaan nin yacay ma tihid marka ayaa tala markaa isiisay oo aan yeeli waayey farahaad iga qaadi waan ku imaanaya marka ayada waxaan ku dhahay niyo waad maxsan tahay tala aad hadda ka hore isiisay aan hore aana ka yeelin waan ku qaldamay nin yacni ummadda wax badan u tari lahaa ra'yigiisa in la qaatana mudan ayaa tahay haddii yacni ta aanay dhicin oo adigana aad yacni dusha iga dhiiqaysid anna aan waxba kuu reeban waad dareemi kartaa waxaa la isku dheganaanayaa ilaa iyo weligeed baa la isku weligeed waa dheganaanaya la isku dheganaanaya weligeed baa la isku dheganaanaya aad iyo aad wax xal ah oo rasmi ah oo dhalanayana ma jirto jugjug meeshaada joog waay iyadoo la iscaynaa waqtigaa kaa dhacaya waqtigaad iga dhamaynaysaa adina beritoola markaad heshid waqti ku ogolaana maayo in yani muxuu aad wax aad qabatid ku ogolaana maayo in yani muxuu ahaa tallaabadaada xitaa horey aad u qaadid waayo waxaad ahayd kii shalitoole igu dheganaa igu dheganaa aad iyo aad aad iyo aad marka taasna waa laga fiicaya runtii markii si hoose loo fiiriyo aad iyo aad aad iyo aada looga fiican yahay waayo ummadda maanta uma baahno isjijiid in loo sawiro maanta haddii tusaale yar aniga adiga barnaamij ummadda u dan ah intaan ka wada fikirno aan sameyno ummadda aaday ugu farxayaan aad iyo aad aada markay ugu farxaan kasoo tag waxaa la arkay aniga adigoo isku dhegan takhayal ummadda maxay dhahayaan oo weliba isku dheganaasho keliya iyo kala arag duunaasho iyo saanaa ilo qoban iyo saanay ku wanaagsanaan lahayd keliya maaha aniga adiga oo burush isu marinayna ayaa la arkaya niijo baa meesha dhalanaya aad iyo aad haddii marka niijo meel u yimaadana shaqayntii ma soconayso wada shaqayntii ma soconaysa niijabkaas la beeray waxaa laga yaabaa adigana inaan nacab kuusii lagu qabto
anigana sidaas oo kale inaad nacab iyo xaniyo siibtida laga yaabaa oo labadeennima yacni nagala faa'iidaysto aad iyo aad oo ay ka dhacdo dibigii madoobaa maalintii la cunay ayaa dibiga cadna la cunay si fiican adigana halkaaga waad ku baaba'ay aad ku baaba'aysaa anigana halkii aan ku baaba'ayaa yacni qofka cadowga ah ee doonaya mar walba laba saaxiiba ah ama laba walaala inuu iska hor keenana haddii asaga oo dhintay xitaa cadow ayuu sii beeraa un waa un midkuu joogo si fiican laba xal wada dhexdooda mar walba waxaa ku jira yacni sharwada si fiican ama insaan caadi ha noqdo ama shaydaan dadka yacni waswaasiye oo khaladka ka waswaasiyey oo yacni ku beera ha noqdo sharwada lagama weynaya aad iyo aad aad iyo aad sidaa darteed haddii hal mar un baa laga badbaadi karaa halka saxda marka la wado haddii rag isqabsadaan in loo laabto waxyaabaha lagu heshiiyey ee lagu kala bixi karaa sulxi maanta aniga adiga haddii aan ku heshiina qalankaas si dadka kale aanay noola ogaanin qalan u bixi mayne qore ayaan dhahnaa waxbaa lagu qora haddaan dhahno oo aan ku heshiinay haddii hadhow wax yar kadib ay iga fakato aan idhaahdo qalankii isii oo aad tirahdo warheedhe maxaad tiri qore aan ku dhihi waaye oo adi aad ila dagaashid oo dagaalka kadib aan ku imaado aan ku yirahdo warheedhe niyow maxaa dhacay war adiga soo ima aadan dhihin bahalkan qalin waa ka bedelaynaa qore ayaan ku bedelaynaa oo aan dhahan okay waxyaabihii lagu heshiiyey ayuu khayrku ku jiraa sidaas darteed qoraha ayaan kugu taageersanahay si fiican dadka intiisa kalena sidaas ayaan ku socodsiin ogow musطalax walba ama wax walba ama shay walba oo aan baqaado oo maanta yani dadkoo dhanna ay wada fiirinayaan rag un baa ku heshiiyey aad iyo aad aad iyo aad rag un baa ku heshiiyey tanada rag kuma heshiin waaye laakiin waa la kala geeya waa la isku daya dhowr jeer in la kala waxeeyo si fiican aad baa u mahadsan tahay ustaad maxamed sida qiimaha badan oo aad arrinkaa u falanqaysay waxaa jiray run ahaantii markii laga soo baxay halkaa ay hoostu maraysay in uu jiray mooshin labaad mooshinka labaad oo la keenay muxuu yahay isagoo la fiis wallahi doctor taas waxaa lagu micnayn karaa qaniinti ayaa kaa fujisa marka mooshinkan waa ra'yigayga waxay ila tahay waa jawaab maadaama madaxweynihii mooshin laga keenay sida hore aan kugu sheegayna dadka ay kala laba garab oo isbarbar socda ay jiraan qaybna mucaarad ah qaybna muxaafid ah haddii nin muxaafadka ahaa ama yani madaxweynihii laga keenay mooshin laga keenay oo qolooyinka mucaaradka ay keeneen waxaa laga maarmaan noqotay qolooyinkii muxaafidka ahaa ama taabacsanaa ayagana inay ka jawaabaan marka jawaab un baa dhihi karanaa oo keliya ee ma ahayn soo jeedin marka waa aragtidayda soo jeedin la dhahayo ra-iisul baarlamaanka wax buu gudan waayey ama uu ka gaabiyey soo jeedin la dhahayo inay tahay ilama ah waxaadna ku garan kartaa taas ayadoo annaga dib u tix raacayno guddoomiyaha baarlamaanka dhanka uu ka tirsanaa iyo hadday qaybteennii hore waxaan ku niri ra-iisul baarlamaanka waxaa keenay meesha ama saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad iyo aad wuxuuna ka tirsanaa xukuumaddu ka tirsanaa say tahay sidaa darteed wax saas u buuran ma aha tan dambe bis waa ka jawaabid oo ninkan xoogo lagu gilgilayo kadibna la dhahaya haddii aada mooshinkaas adiga hakin weysid adigaa maqan aad iyo aad kadibna laisku dayaayo in dadkii marka koowaad mooshinka ka keenay ama usoo gudbiyey ra-iisul baarlamaanka in lakala furfuro loona sawiro dadkiisi inay hoos isu sii dhimayaan ama ay sii yaraanayaan bareesharna lagu saaro inuu ka laabto kadib aad iyo aad marka isku soo duuduub waxay noqonaysaa taas ayada ah mooshinka dambe qaniinti ayaa kaa fujisa unbaa kaa fujiso wax kale oo hadda saas u buuran aad igama muuqdaan halkaas waad mahadsan tahay ustaad maxamed cusmaan run ahaantii barnaamijkii annaga oo weli kusii jirno oo kuna sii qaada siqayna barnaamijka qeybihiisii dambe daawadayaal hanaga fogaanina qadar yaroo faasila waan isku soo laaban doonaa
telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga. fariintiisuna waa xal u helidda dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan. higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda daawadayaal isku soo laabad wanaagsan mar labaad waxaa barnaamijkii ayaanu ku wada jirnaa aanu ku qaadaa dhigeena caawa arinta mooshinka iyo xaalad siyaasadeedka wadanka iminka uu ku jiro waxaana barnaamijka marti igu ah maxamed cusmaan cali kusoo dhawow maxamed mar saddexaad waan dhawahay aad iyo aad aan u mahadsantahay doctor allah yabaarik fiika haddaba ustaad barnaamijka annagoo kusii siqayna qaybihiisii ugu dambeeyey mar haddii aan intaasoo dhan kusoo mushaaxnay oon mushaahidka daawadaha uu dareemay ahamiyadda iyo arrinkani meesha uu kusii socdo iyo qaabka uu u dhacay waxaa jira ayaamahan in ay arintaa ay soo cusboonaatay murashaxii Robow oo markii horena ahaa hogaamiye ka tirsan xarakadan shabaabka ah oo run ahaantii lagu xiray hadda ayaamihii ugu dambeysay muqdisho sida wararka ay ku sheegeen arrinkaana maxaa ilaa iminka ka soo cusboonaaday ama horta Mansuur Robow waa la xiray xiritaanka hore waa inaan fiirinaa shakhsiyadda Mansuur Robow muxuu yahay ma qabo horta mawaadin ama shakhsi aan maxkamad waaran u soo jarin in la xiro ma qabo laakiin iyadana waxaa lama iloobaan ah oo cid walbaba maanta is weydiinaysaa muxuu yahay Mansuur Robow Mansuur Robow waa in hogaamiyaha labaad ayuu soo ahaa waxay ila tahay dhanka xiriga marka la yiraahdo ani ma qabo in la xiro ma qabin laakiin waxyaaba ay dowladda ama xukuumadda ay tiri waa sabab ay u hadin la soo xiray ayaa jirtay ay ka dhawaajisay inkastoo aan cadayn dowladda Soomaaliya waxay tiri heshiisyo uu nala galay ma uusan buuxin kama uusan soo bixin marka waxaan qabaa xirigiisa ka hore murashax uu ahaa uu cadeeyay inuu murashax yahay laakiin aan fiirina ma isu soo sharxi karaa ma ku habboon tahay mawaadin waa isu soo sharxi karaa laakiin waqti xaadirka ma ku habboon tahay aan fiirin ma ku habboon haddii la yiraahdo haddii xaalad aad ku jirtay waxaa loo baahan yahay horta xaaladaas marka koowaad cadday inaad bannaanka ka tahay aniga ka shakhsi ahaan anigoo fikirkayga cabirayo waxaan u maleynayaa ma maqlin mana arkin meel Mansuur Robow uu ku yiri tayaarkii hore ama wadadii hore aan ku socday waan joojiyay waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed oo idil inaan u sheego barnaamijkaas inaan ka laabtay si ka yaafiyaan ma arkin kadib waxaan soo dhaadhici doonaa sharaxitaankiisii waxaas haddii cid aragtay ay jirtana hadda ka hor waqtiyadan hadda aan hadlayna ka hor haddii
cid barnaamijkaas aragtay ay jirtana way nala soo sheergalan kartaa ama way nala soo wadaagi kartaa u malayna maa inay jirto waxaa kaloo dheeri ah maanta dadka qaar xaalad ay ku ogyihiin masala ama ay ku ogyihiin mukhtaar rogo xaaladda ay ku ogyihiin xaalad aan ahayn si degdeg hadduu usoo galo dadka qaarna ma aaminayaan ama waxay isdhahayaan ama xaalad kale ama barnaamij kale ugu faa'iidaystaa marka barnaamij aad ka gudbaysidna waxaad kusoo jirta inaad daraasisid dib ugu laabatid warheedha maxaa ilaa inta camal barnaamijka kusoo jirtay muxuu ahaa barnaamijkaas barnaamijka u socotid muxuu ahaa muxuu yahay inaad dhahdid oo daraasa markaa ayada ku salaysan waaqiciga wadanka ama meesha aad joogtid ku salaysan in lala yimaado ayaa muhiim ah waayo barnaamij marka ka laabanaysid ama aad wax walba aad ka tooba keenaysid waxaa laga maarmaan horta nidaamo waa inaad muujisaa shalayto wixii hore aad geysatay aad ka qoomaysa aad tira warheer barnaamijkaas khatarahaas ayaan sameeyey waana ka laabanayaa haddii ay tahay barnaamij yani shacab aad ka gashay ama ummad aad ka gashay waa in ummadda ogolaashaa iyo saamixid iyo cafis aad weydiisaa ma dhicin barnaamijkii aad ku jirtay inaad ka baxday ma caddaynin haddii maanta saldano ama xasaanad awood badan dusha lagu saaro howlahaagina halka aad kasii bilaabato soo khatar inteeda la eg ma aha sidoo kale yani haddii adigoo yani barnaamij ku jirtay yani madaxweyne aad noqotid soo ma dhici karta dad qaar inay ku aamini waayaan oo ay kula tacaamuli waayaan ama yani ay wax kula wadaagi waayaan ama ay ku imaan waayaan ama ay kula shaqayn waayaan oo suspector laga qabo ilaan barnaamijkaada ma cadde eh adduunka marka waxaa wanaagsan wax walba si kaliir ah oo cad in loo sheego kadib ayaa tallaabo la qaadi karaa xaaladda ah ma is-sharaxi karaa markaas kadib ay imaan kartaa oo مع إنه كونه أما شخصيا أو يهبا مواد صومالية وشرحي كلا ودعسة مركز أيضا هدي إنتان أيضا لا يحل وحنا سنين كلا مركا لنك حريتانك أنا وحن واركا سكرة إن لو ديك كري أما قاب كلا لغو ماري كري من كان هدي أيضا على إنه السوشرح فلا إن لغا أنا لحرين حسرد يبوق أنا لجلن hadda waxaa laga yaabaa intaasoo shacab ah maanta inay u fahamsan yihiin ninkaas inuu saxnaa markaad adiga usha gacanta ku haysid waxaad samayn kartaa soo sharaxa laha ninkaas yani ma xumaynaysid qofka adiga aada wadatay ayaa saboor garaynaysaa waa ka shaqayn kartaa waxaas adigoo yani aana buuq gelin haddii marka koowaad dignin aad u jeedisay aad tiri xeedhaha is-sharaxin waqtigaa munaasab ma ah oo kaa diiday kugu dhagaaday hayo waay okay dhib ma laha qof kala meesha geysanaya waa saboor garaynaya waxaan awoodaa xildhibaanada ama dadka codaynaya in aan ku bush gareeyo in qof kale la soo saara maadaama hadda xaaladdan la joogo qofkaani aan muahal u ahayn ama macquul aan ahayn waqti xaadirkan loo xiray taasi ma ayna dhicin waa la soo baxay waa la xiray hala xire waxaa kasii horeysay xiritaanka laftigiisa waxaa qurux badan leed maxkamad ninka inay u yeertay ay tiri warqad maxkamada lagu xiray ninkan lagu aadayo ma dhicin waxa kale dadka qaar is sii weydiinaya waxay tahay mawaadin marka la xiro jeelka inta lagu jiri kara sharciga caalamiga ama kan yani shuruucda waa la wada yaqaana maanta intuu qofka jeelka bilaa maxkamad la-aan ku jiri kara waa yaroo kooban maxkamadda lama soo saaran haddana ilaa iyo hadda wuxuu ku jiraa yani wuu xiran yahay xurriyad la-aan maanta u malayna maya nin joojooban oo yani la jir dilaya ma aha oo waan dareemi karnaa dowladda soomaaliya maanta maasha allah dhanka la dhaqanka maxaabiista way ku fiican tahay runta markaa laga hadlo haddana maxkamadda lama keenin meel lagu hayana ma cadda
maxkamadna waanan uma soo jirin oo amar maxkamad laguma soo xirin oo nin eedeysan ama ah taasna waa barnaamij xajmigiisa iyo awoodiisa iyo fiirintiisa iyo mug gooni ah leh waay waxaa kaloo dheeri ah shacabka maanta mudaharaaday murashaxa yani dartiis u mudaharaaday ee weliba dadka qaarkood maanta xilal isaga casileen aan ka warqabno yani aniga waxaa ila qurux badan in xaaladda sidaas laga bedelo qaab kale ayaa iyaga laftigooda wax ku waxeen karaan mudaharaad ama rabshad dalkeena maanta anfici maayo halka shay ee mar walba aan ku gaaf wareegay waxay tahay wax walba wada hadal iyo xal ayaa lagu gaari karaa soomaalida fawdo iyo xabad xal uma noqoto xalka wada xaajood wey haddii lasu yimaado maxaa qaldan saan iyo saana qaldan war ma ku qabsan karaa haddii maanta ani aad ku qaban karin qof kale ku qabta ma weynaya ani marka reer koonfur galbeed gaar ahaan waxaan ugu baaqi lahaa nabad iyo xasilooni in ay ku soo dabaalaan si fiican bay bakool xaaladan la dejiyo odayaashan ha ka qayb qaataan iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka maadaama maanta banaanbaxa iyo khasaaraha dadka saameynaya ay yihiin hooyooyinka iyo caruurta iyo maatada yani ha ka qayb qaataan sidii xaaladaas loo wada dejin lahaa aada iyo aad baa umahadsan tahay run ahaantii si fiican oo labada dhinac oo dowladda iyo ha ahaato iyo ma garanaysaay mansuur oo la xidhay iyo xataa baydhabo arrinka ka jirta ilaahay inuu horta dejiyo inuu horta ilaahay quluubta soomaalida isu keeno ayaan ilaahay ka baryeena marka ugu horeysa arrinkaana meeshaas ayaan ku xiri doonaa annaga oo waqtigii uu naga sii dhammaanaya awgeed laakiin waxaan usoo laaban lahaa mucaaradka ama dadka ka aragti duwan dowladda ma la odhan karaa mucaaradka soomaaliya waa mucaarad la dhihi karaya waa qof mucaarada oo bisil mise waa yani kuma sifoobi karaan baa la odhan karaa mucaarad mucaaradka soomaalida iyo mucaaradka waxaa la yihahda caalami ahaan marka u fiirino ama caalami ahaan iyo wadamada hadda soo koraya marka u fiirino kaafii kala dheer wax isu dhow maaha aniga haddaan mucaarad ahay ama qofka mucaaradka waxaa laga rabaa inuu tilmaamo waxyaabaha loo baahan yahay oo keliya horta sidiisaba mucaarad waa mas-uul ama waajiha mas-uul ah doonaysa wax in la hagaajiye ma aha mucaarad inuu wax burburiye waa muraayad qof isku fiirinayo meeluhu ka qaldan yahay iyo meelaha yani ku saxan yahay intaba tilmaamaysa laakiin haddii ay noqoto arrinta cadkaan cuni waa ciideeyey macnaha waxay ka baxaysaa shuruudihii iyo mucaaradnimo qofka waa ka baxaya wuxuu noqonayaa xaasid haddaad mucaarad tahay mucaarad waad noqon kartaa waad arag duunaan kartaa aada iyo aad ii tilmaan waxyaabaha systemka ama nidaamka asaga ah marka uu ku socoyo waxaana qaldana si hoose weliba yidhi adigoo aanan meediyaha iyo bulshada aanan liijibinaynin aad baa umahadsan tahay daawadayaal meel walbo aad joogtaan barnaamijka caawa halka ayuu noogu eegyahay waxaana marti igu ahaa maxamed cusmaan cali ustaad maxamed cusmaan cali oo ku magac dheer mucjiso anigoo idinla xidhiidhsiinaya barnaamijka maxamed daahir intaan aan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaanu idinka tegaynaa fi amaan illaahi wa xifdihi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh